degmada Luuq ee gobolka Gado waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta xaafadaha degmada Luuq. Tartankan oo ay ka soo qayb galeen 10 xaafadood ayaa waxaa gabagabadii finaalka isugu yimid xaafadaha kala ah Sheekh Maxamed iyo xaafadda Holwadaag. Iyadoo ciyaartu ay ku dhamaatay barbardhac ayaa waxaa loo baahday gool kulaad ama rigoorooyin waxaana guushu ay ku raacday xaafadda Holwadaag. Kulankan oo watay xiiso iyo xamaasad gooni ah ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Luuq oo ugu horeeyo gudoomiyaha maamulka degmada Luuq ee gobolka Gado Daahir Maxamed Nuur Daahir Caato iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmadan Shabarti Isaaq Horow iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada Cabdicasiis Sugow Salaad. Dadweyne ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee degmada Luuq ayaa garoonka si weyn u camiray. Gudoomiyaha maamulka degmada Luuq ee gobolka Gado Daahir Maxamed Nuur Daahir Caato ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin sidii loo xoojin lahaa tartamada noocan oo ah kubadda cagta isla markaasina looga qayb qaadan lahaa isdhexgalka bulshada. caafimaadka aan inta tan habis isugu maadina siiyay aan ku ciyaarayno dhalinyarada intaan leeg oo wanaaggan leh ay uga soo qayb galeen inay ciyaaraan aad baan ugu bogaadinayaa. waan ku mahadsantihiin. waxaa suuragal leh in kan waa mid xaafadeed kii weynaan inuu dhaca oo degmada baan rajaynaynaa isagana kaasna inaan qaban doonaan rajaynaynaa haddii aan raalli ka noqdo. alxamdulillaah ciyaartu waxay noogu dhammaatay si nabadgelyo oo farxad leh. waxaan u hambalyaynayaa tiimka Howlwadaag oo guusha raacday. haddee aad baad u mahadsantihiin. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Luuq ee gobolka Gado Muxiidiin Faarax Nuur ayaa isagana u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay tartankan. gabagabadii waxaan u hambalyaynayaa xaafadda Howlwadaag iyo xaafadda Sheekh Maxamed oo ugu dambeyntii isugu imaaday finaalka. finaalkan ay qaaday xaafadda Howlwadaag. waxaan leeyahay xaafadda Howlwadaag markoowaad mar labaad hambalyo. xaafadda Sheekh Maxamedna waa dadaasheen oo dadaalkiinii iyo juhdigii iyo aad bixiseenna waad ku mahadsantihiin. u hambalyeynaya dhammaan 10kii xaafadood kabtanadii gudiyadii gudoomiyaashii dhalinyaradii ka soo qaybgalayaashii iyo dhammaan taageerayaashii isugu jireen hablaha iyo dhalinyarada. waxaan leeyahay ayagana hambalyo. maanta hal koox ma guuleysan ee waa wada guuleysan. garsoorayaashii muddada uu socday liigaas soo dhexdhexaadiyay oo sida cadaaladda ay ku jirto ku soo dhexdhexaadiyay. sidoo kale ayagana waxaan hambalyo leeyahay dhammaan ka soo qaybgalayaashii maanta noo yimid oo u horeeyay gudoomiyaha degmada iyo laamaha amniga iyo ciidamadii amniga oo ayagana ka qaatay kaalin mug leh in ay maanta amniga garoonka sugaan. ugu dambeyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa walaalkay Bashiir Xaashi sida dhiiran walaalnimada iyo geesinimada iyo nafurnimada leh oo noo garib istaagay oo maanta ay ahayd maalin farxadeed ee ka soo qayb galeen kumanaan dhalinyaro ah xaafadeedkii ka socday degmada. ninkii aan uga mahadinayno aan ugu mahadcelinayno aan mar walbana aan leenahay hambalyo waa Bashiir Xaashi. Bashiir walaal sidii aad noogu soo dhiibtay inaan ka shaqeyno dhalinyarada isdhexgalkoodii iyo midnimadoodii iyo wadajirkooda bilaaw ilaa dhamaad waan ka shaqeynay waana dhameynay. waxaana si gaar aniga aad ayaan u faraxsanahay maxaa yeelay bil iyo maalmo waxaan ku jiray marxalada adag iyo dhalinyaro kala gedisan. Maxamed Cabdi Aadam raadiyaha TV qaranka degmada Luuq ee gobolka Gado.